Wacan oo wanaagsan dhammaantiin inta halkan inaga dhegaysata daawadayaashii dhegeystayaashii nagu xiran waa mar kale iyo wararkii Soomaaliya oo aad channelkan kala socotaan. Saacadihii aanu kasoo gudubnay waxaa lagu dhawaaqay oo uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu shaaciyay golihiisa cusub ee wasiirada, waxaana aad hadalhayn u dhalisay tallaabo ra'iisul wasaaraha uu qaaday oo maalmahan ba hadalhayn ka ahayd baraha bulshada. Isla halkana aan idinkaga sii waranay oo ku aadanayd in Mukhtaar Robow oo horaan hogaamiye ku-xigeen uga ahaa ururka Shabaab ahaana afhayeenka kooxdaasi waa Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo ka mid noqonayo golaha wasiirada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaana maanta shaacintii u shaaciyay wasiiradiisa oo kasoo muuqday Mukhtaar Robow sida loo sii saadaalinay amaba la isula dhexmarayay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu goor ku dhawaaqay golihiisa wasiirada, waxaana ay ka kooban yihiin 26 wasiir iyo ku-xigeenadooda iyo wasiiro dowlayaal. Munaasabadda waxa ay ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana inta aan lagu dhawaaqin golaha wasiirada uu ra'iisul wasaaraha sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ku jiraan xaalad adag sida abaar iyo amni darro, loona baahan yahay in la helo xukuumad dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba samata bixin karta. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in wadatashiyo dheer oo uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha golaha shacabka, guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada labada aqal uu magacaabay wasiiro isugu jira rag iyo dumar, isaga oo golaha shacabka ugu baaqay in ay ansixiyaan xukuumadda cusub ee uu maanta ku dhawaaqay. Golaha wasiirada Soomaaliya ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa ku jira Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo tan iyo sanadkii 2018 u xirnaa dowladii hore ee uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo loo magacaabay wasiirka awqaafta arrimaha diinta. Bal haddaba aanu dib u eegno Mukhtaar Robow wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka Shabaab. In ka badan 16 sano ayuu ka dagaalamayay gudaha dalka Soomaaliya. Wuxuu ahaa taliye ku-xigeenkii midowga maxaakiimta sanadkii 2006 ka adkaaday isbahaysiga la dagaalanka argagixisada oo ay ku mideysnaayeen dagaal oogayaashii magaalada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya. Abu Mansuur Robow waxa uu ka mid noqday hogaamiyaashii Al-Shabaab ee soo caanbaxay kadib markii maxaakiimta Islaamiga laga saaray magaalada Muqdisho dhammaadkii sanadkii 2006. waxa uu noqday afhayeenka iyo ku-xigeenka Al-Shabaab sanadkii 2007, isagoo ka hadli jiray fagaarayaasha dadkana la isugu keeno iyo weliba saxaafadda. Waxaa kaloo la sheegay in Robow uu ka qayb galay shirkii magaalada Asmara ee dalka Eritrea ee la isugu geeyay siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo markii dambe dalka madax ka noqday. Haddaba xiritaanka Mukhtaar Robow ayaa xabsiga loo taxaabay bishii December ee sanadkii 2018 xilli uu waqti kooban ka harsanayd doorashadii madaxweynaha Koonfur Galbeed, isagoo ka mid ah musharaxiintii u cadcadda. Xarigiisa ayaa sababay in qalalaaso uu ka dhaco magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, iyadoona sidoo kale lasoo tabiyay qulqulitooyinkaasi inay waxyeello isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay kasoo gaartay dad rayid ah iyo dibadbaxyaal taageersanaa Robow. Horaantii sanadkii 2019 siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa ay BBC-da laanteeda afka Soomaaliga u sheegeen in uu dib u dhac ku yimid rajo laga qabay dhaqdhaqaaqyada ku aadan sii deynta Mukhtaar Robow. Markii la xiray Robow, dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in sababta loo xiray ay ahayd in uu kasoo bixi waayay shuruudihii lala galay markii uu isu soo dhiibay, sidaas awgeedna aan la aamini karin. Robow ayaa eedeyntaasi beeniyay, sheegayna in loo xiray sababo siyaasadeed. Wuxuu horey u ahaan jiray hogaamiyaha labaad ee ugu sarreeya ururka Shabaab. Mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliya waxay ku eedeeyeen in hub iyo ciidan uu si gaar ah ula tagay magaalada Baydhabo. Wuxuu Baydhabo u tagay in uu ka qayb galo doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo xilligaasi uu socday ololaheeda. Xiritaanka Robow waxay galaaftay
wakiilkii gaarka ee xogeyaha qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya xilligaasi Nicholas Haysom oo dowladii madaxweyne Farmaajo ay ku eedeysay inuu faraha la galay arrimaha gudaha xilli uu ka hadlayay rabshadihii ka dhacay Baydhabo kadib xiritaankiisa. Dowladda Soomaaliya waxay xilligaasi ku amartay Haysom inuu dalka si degdeg ah uga baxo. Ka hor intaan dalka laga ciirin, Nicholas Haysom wuxuu soo saaray warqad uu uga hadlayay saameynta ka dhalan karta in ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay taageerto ay ku lug yeeshaan xarigii Robow. Eridii ergeyga qaramada midoobay ee Haysom iyo amniga dowladda Soomaaliya ayaa waxay Mukhtaar Robow ku eedeysay inuu dhaqdhaqaaq amni darro ka abuuray gudaha magaalada Baydhabo, taasoo ah eedeyn ay beeniyeen kooxdiisii ololaha doorashada. Abu Mansuur ayaa waxaa magaalada Baydhabo lagu qabtay bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii 2018 waxaana xigay rabshado la sheegay in ay ku dhinteen 15 qof oo rayid ah. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre markuu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada aadka loo sugayay ayaa saameynta ugu badan waxaa yeeshay waxyaabaha aadka loo hadalhayana uu noqday Mukhtaar Robow oo horey u ahaa hogaamiye ku-xigeenka Shabaab muddo ku dhawaad 4 sanana dowladda u xirnaa. Iyadoo haddaba aad hadalhayn ay u dhalisay qaabka wasiiradan uu soo xushay ama ugu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ayaa waxay noqotay in wasaaradaha qaar la baabi'iyey kuwo kalena la abuuray. Bal aan eego waxaa meesha laga saaray wasaaradii gargaarka iyo musiibooyinka malahan maadaama madaxweyne Xasan Sheikh uu horey u magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu noqdo ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha iyo gargaarka bini'aadanimo. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd, waxaana hadda la raaciyay wasaaradda cadaaladda oo noqonayso wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka, waxaana loo magacaabay Xasan Macalin. Labada wasaarad ee meesha laga saaray ayaa tirada wasaaradaha ka dhigi lahaa 24, balse waxaa la soo kordhiyey wasaarad cusub oo ah wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada. Axmed Macalin Fiiqe ayaa laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha, halka Dr. Maxamed Sheekh Cali Doodishe loo dhiibay wasaaradda amniga. Si gaar ah marka loo fiiriyo xukuumadan cusub ee lagu dhawaaqay galabta, waxaa saameyn badan ku dhex yeeshay wasiirada oo aad ilaa iyo hadda loo hadalaya magaciisa Mukhtaar Abu Mansuur Robow Cali oo al-shabaab hore uga tirsanaa kana mid ahaa aasaasayaasheedii iyadoona haatan xil wasiir loo magacaabay. Bal aan eegno wararka kale oo isla wasiirada ku saabsan wasiirada kale oo la magacaabay waxaa sidoo kale ka mid ah Senator Saalax Axmed Jaamac oo loo magacaabay xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, halka Maxamuud Doodishana loo magacaabay wasiirka amniga gudaha. Xilka wasiirka arrimaha gudaha waxaa loo magacaabay Axmed Macalin Fiqi, halka gaashaandhigana dib loogu magacaabay Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Faarax Cabdulqaadir ayaa hore loogu magacaabay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare, iyadoona Abshir Cukar Haruuse loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda. Maxamuud Cabdiraxmaan Beene ayaa sidoo kale loo magacaabay wasiirka qorsheynta. Haddaba liiska buuxa ee xubnaha iyo wasiiradan lasoo magacaabay ayaa waxa ay kala yihiin sidatan. markii uu arkay ra'iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka koowaad xubnaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana ay kala yihiin sida soo socota: mudane Saalax Axmed Jaamac, ra'iisul wasaare ku-xigeen; mudane Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur, wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta; mudane Xasan Macalin Maxamuud, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka; mudane Axmed Macalin Fiqi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta; mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka wasaaradda maaliyadda; mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur,
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane abshir cumar huruuse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane faarax sheekh cabdiqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene wasiirka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha generaal cabdulaahi axmed jaamac elkajiir wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda marwo dowso isaan cigaal doore wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane jaamac xasan khaliif wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane xasan xuseen maxamed xasan ceelaay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane jibriil cabdirashiid nuur xaaji wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta marwo khadiijo maxamed diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane doctor cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane doctor maxamed axmed sheekh cali doodishe wasiirka amniga gudaha mudane axmed madoobe nuudhow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane doctor cali xaaji aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane axmed xasan aadan wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane daawud aweys jaamac wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska mudane biixi iimaan cige wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane jaamac takhal cabaas wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha mudane maxamed bare maxamuud wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo marwo khadiija maxamed almaqzuumi wasiirka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada